lasaqo oroda farandilaysa ayaa la sheegay in la gaari waayay oo ay cagaha wax ka dayday iyadoo qalas leh dal ku yaala qaaradda Yurub. afadan oo u dhalatay duulka Xabashi la yiri isla jeerkaasna isdoorisay oo qaadatay dhalashada dalka caanadiiqda ee Holland ayaa xaab laga soo qaadi waayay. naagtan ayaa la sheegay in ay wax ka yar 30 daqiiqo ku xanfartay 10 kiiloomitir kadib markii tartan loo dhigay iyada iyo rag kale oo ay ka siigaysay. Sifaan Xasan ayaa jabisay seeska orodka iyo tartanka 10 kiiloomitir waa in rogosho lagu gaadhay taasoo la guddoonsiiyay abaalmarin iyo daasad wax ku oola. booskan ay naagtan ciriirsatay ayay ka qaaday afa hore oo Itoobiya u dhalatay waxaana horay darajadan u haysatay haweeney kale oo dalkaasi ka soo jeeda. dhinaca kale ninkii garwadeenka u ahaa kooxda maleeshiyaadka ee Boko Haram Abubakar Shakawu ayaa la sheegay inuu allaystay kadib markii uu mid kale nafta kula itaalay oo uu bam isku xidhay. sida la dhageystay kadib markii cod ay soo duubeen koox kale oo iska soo horjeedaan ayaa la biriixiyay in wiilkan oo ku jiray da'da dhexe uu istilay iyadoo la sheegay inuu meel laga soo jabsaday colkiisa uu ku aamini waayay cid kale oo aan ahayn naftiisa. waxaa la sheegay in markii waxoogaa la isku qasayay ay soo waldaamisay ama dani tiri inuu nafta bixiyo oo qarax isku xidho. Abubakar Shakawu hogaamiyaha kooxda Boko Haram ayaa hore looga fadhii waayay toodhada iyo faanka muuqaalo isdaba jooga oo uu ku soo kalwin jiray dhalooyinka iyo quraaradaha la iska arko. dhowr goor oo hore ayaa ninkan laga been abuuray iyadoo la soo wariyay inuu allaystay oo uu curaagtay roodhidii u dambeysay ee uu dunida ku lahaa taasoo noqotay hadur iyo hadal meel waayay balse maanta ayay runtii timi oo welibana uu isaga laftiisu isugu soo dhaqsaday. xilliga dawladda iyo ciidamada qalabka sida ee Nigeria ayaa tibaaxay inay baadhayaan nolol iyo geeri meeshuu ku sugan yahay 40 jirkan maanta lagu soo warramay. dawladda Nigeria iyo kooxda uu ka midka ahaa ee xaaraanta ahayd ayaan ka dibin jaaqin in horjoogaha kooxdaasi godgalay iyo in kowl ama kimis weli u laaban tahay. Abubakar Shakawu wuxuu awoodda kooxda la wareegay ama ku durkay wambarka Boko Haram markii la dugaariyay ninkii dambaabi jiray kooxdan oo booliisku dileen taasoo iyana soo dedejisay in ishu dhiig yeelato isla jeerkaasna la isaga carra qaado Nigeria iyo kooxda Boko Haram. kooxdani kii hogaaminayay godgalay ama lagu soo warramay geeridiisa ayaa caan ku ahayd afduubka carruurta iyo ciyaala iskuulka kadib markii hadafkoodu noqday in waxbarashada ay gebigeed tahay xaaraan iyo maqdac. Eritrea waxba ugamayna tegin dadkayaga waxay gurteen buushihii xoolaha loo dhigayay waxayna gubeen balkii ay qaadan kari waayeen. sidaa waxaa leh Dr. Abadi Girmay oo ah madaxa xafiiska beeraha ee maamulka kumeel gaadhka ah ee deegaanka Tigray. ciidamada Eritrea waxay kala dagaalamayaan in dadka Tigreegu noolaado waxay qalanayaan xoolaha nool waxayna qaadanayaan raashin iyo caws wixii ay awoodaan waxayna gubayaan waxay qaadan kari waayaan. hadallada noocan ah ee ka soo baxaya maamulka kumeel gaadhka ah ee Maqale ayaa dhabarjab weyn ku ah wax walba oo xukuumadda Addis Ababa ay sheegayso waana kuwa dhiiri gelinaya in dhalinyarada Tigreegu ay TPLF si rasmi ah ugu biiraan. weli daawade waxaynu ku jirnaa wararka dalka Itoobiya ee wariyihii idaacadda BBC Dasta Gabre Madihan ayaa dhufays ka aqaytay furinta hore ee dagaalka u dhaxeeya qoomiyadiisa Tigray iyo xukuumadda federaalka Itoobiya. wariyahan ayaa qubay ama daadiyay dhikiladii warka duubi jiray iyo daasadihii codka qaban jiray ee idaacadda Faransiga ee BBC u soo dhiibtay. wuxuu sheegay inay wadhacwadhada BBC ay la safatay Itoobiya kana gadaalisay oo ka xaglisay qoomiyadda Tigray taa beddelkeedana aanay isaga dani ugu jirin inuu sii dhurmo ama ka sii warramo meel dadkiisa lagu dugaadhinayo. wuxuu sheegay oo intaa ku daray in nimanka gaalada ee Faransigu ay dhinaca saaraan hadba dawladda talinaysa isla jeerkaasna aanay dan ka lahayn qaxa Tigreega qaxoontiga gaajada iyo macaluusha haysata dadka la dhigay waqooyiga Itoobiya inta weeraya. war aan sii duubo iyo ka waranka dadkayga oo la gabanwarayo ama la xasuuqayo aniga waa ii dabiir xumo mana fiicna in waxa oo kale waqtigaga sii lumo waxaase igu isku dhaanta anoo qoriga qaata oo hal askari oo Itoobiyana xabaalaha ku dara ayuu yiri wariyahan oo la dhaho Dasta Gabre Dastihan. maaha markii ugu horeysay qof Tigray uu ku biiro sida dalkiisa uu isaga dhicin lahaa heeryada xukuumadda oo ay warkaan in iyaga mooyee cid kale talin karin. danjirayaal dibadda loo diray ayaa ku soo shalwaday buraha Tigray si ay garab uga dagaalamaan dagaalyahanka dadkooda. ganacsato khamri daruuri jirtay ayaa sidoo kale sayrisay biyihii kululaa ee ay gadi jireen
iyaguna islaama haystay meelo cilaansaar ayaa kimista iyo kowlka daba qaaday raggooda rasaasta ku quraacanaya kuna qadaynaya dayanka madaafiicda iyo duyanka galtaallada. qoomiyadda Tigray ayaa lagu tilmaamay inay yihiin duul ay ka go'an tahay dhowridda sharaftooda. wararka kale ee qosol kale aan idihayna ayaa iyaguna waxaa ka mid ah nin ka soo jeeda duulka Soomaali la yidhi ayaa waayay meeluu ku hadho, waxaanu iska dabagalay colka ay sor fadhiyaan ciidamada qalabka sida Itoobiya. ninkan ayaa ka garab dagaalamaya si uu hiil u siiyo saaxiibadii gaar ahaan qoomiyadda Tigray oo iminka isku muqlaysan yihiin dowladda Itoobiya. lama oga waxa ku kaliifay inuu galo Maqale iyo buuraha gobolka waqooyiga Itoobiya, balse hadda wuxuu bartanka ugu jira dagaalada qaraar ee ka holcaya halkaasi. Yuusuf Ibrahim oo ahaa khabiir caafimaad oo ka howlgala deegaanka Tigray gaar ahaan magaalada Adigaraad, horena uga soo shaqeeyay magaalooyinka Daansha, Xumeera iyo meelo kale, ayaa la sheegay inuu raacay oo buuraha la galay saraakiisha TPLF oo uu ka garab dagaalamayo dhaawacoodana daweynayo. ninka Soomaaliga ah ayaa la sheegay inuu deegaankaas muddo 10 sano ah ku noolaa oo uu ka shaqaynayay. dhinaca Muqdishona Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya oo ogeydeen inay isku manaqataysnaayeen muddooyinkii u dambeeyay ayaa ceelka Dubai mar kale isu qoor laabay, waxay ka wada hadleenba. jeesaska midoobay ee Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya ayaa la sheegay in xaalkooda ay dhex gashay dowladda Qatar oo dhex hordaysay khilaafyada labadiis qabtaba. hay-adda basaasnimo ee Imaaraadka oo la dhaho sirdoonka maaliyadda Imaaraadka iyo mid lacagaha uga wakiil ah Muqdisho ayaa heshiis qosol ku jaba ku xariiqday magaalada Dubai. qoraal ay baahisay wakaaladda warka iyo duryanka uga wakiilka ah Imaaraadka Carabta ee loo soo gaabiyo WAM ayaa lagu sheegay in Imaaraadka ay heshiiskan la galeen Soomaaliya iyadoo ujeedku uu yahay la dagaalanka xalaaleynta lacagaha been abuurka ah iyo maalgelinta argagixisada si labada dhinac ay uga wada faa'iidaystaan. Imaaraadka ayaa ka saxeexday Soomaaliya inay lacago xadaaf ku soo daldalaan gudaha Muqdisho, maadaama dhowr jeer oo hore xisaab dollar oo badan laga qabtay, taasoo ay la dhukusayeen isla jeerkaasna ay rabeen inay u gudbiyaan duul maafiya iyo burcad uga shaqeeya Muqdisho. heshiiskan ayaa waxaa kala saxeexday madaxa hay-adda basaasnimo ee Imaaraadka Cali Faysal Baclaawi iyo agaasimaha xarunta habeynta lacagaha been abuurka ee soo gala Muqdisho Aamina Cali. goortan wax la kala saxeexanayo deerada kala dhex miranaysa Dubai iyo Muqdisho. heshiiskan ayaa imanaya iyada oo weli uu aad u xun yahay xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta kadib markii ay dowladda federaalka ay Imaaraadka kala safatay Qatar. ugu dambeyntii daawaday Somaliland, warbaahinta dalalka Yurub iyo Mareykanka ayaa si weyn wax uga qoray doorashada, iyagoo dhinaca kala duwan ka eegay doorashada iyo nidaamka dowladnimo ee Somaliland oo aan weli adduunka ka haysan aqoonsi buuxa. wariyaal isu tegay oo magacooda la yiraahdo Republic World TV oo ah telefishan laga leeyahay dalka Hindiya oo kamid ah ay warbaahinta wax ka qoray doorashooyinka Somaliland iyo soddon guuladii ka soo wareegtay la soo noqoshada madax banaanida jamhuuriyadda ayaa qoraal dheer oo uu kaga hadlay Somaliland iyo doorashooyinkeeda iyo hanaanka dowladnimo ee dalka ka hana qaaday wuxuu ku yidhi 30 sano ayaa u buuxsay Somaliland oo ah dalka xoroobay Soomaaliya waana dimuqraadi aan weli helin aqoonsi. Somaliland waxay isku dayaysaa inay samayso taariikh cusub oo siyaasadeed iyadoo markii u horeysay qabatay doorashada baarlamaanka iyo 2005. doorashadan oo isku diiwaan galiyeen in ka badan 1 milyan oo qof si ay ugu codeeyaan doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Somaliland waa dimuqraadiyad ugu casrisan adduunka ayuu qoray wargeyska The Republican World. wuxuuna intaa ku daray Somaliland madax banaanideeda ku dhawaaqday gugii 1991 waa dunida casriga ah ee dimuqraadiyadda. sidoo kale Somaliland waa dal nabdoon xasiloon oo dimuqraadiya. telefishankani wuxuu warbixintiisa kaga warramay marxaladii Somaliland soo martay, wuxuuna sheegay in Somaliland ahayd dal uu gumaystay Ingiriisku, markaa kadibna la midoobay Soomaaliya oo Talyaanigu gumaysan jiray, balse dhibaatooyin dadkiisa kala kulmay dowladda militariga ahayd ee Soomaaliyana ay ku qasabtay inuu madax banaanidiisa dib ugu noqdo Soomaaliya, isla jeerkaasna uu ku dhawaaqo jamhuuriyadda Somaliland gugii 1990. warbixinta waxaa lagu sheegay in Somaliland oo ku taala madaqada Geeska Afrika ay dhul ahaan dhacdo goob istiraatiiji oo muhiimad weyn u leh dunida inteeda kale. kiiskeeda aqoonsi raadintan ay wadamo ay ka mid yihiin Iiraan, Turkiga iyo Imaaraadku isku dayeen inay ka faa'iidaystaan si ay saameyn ugu yeeshaan. warbixintu waxay sharaxday sababaha aqoonsigu muhiim ugu yahay Somaliland, waxaana ay tilmaantay in aqoonsigu yahay hab lagu qiimeeyo laguna siiyo sharci gaar ahaan dowladnimada, madax banaanida dhuleed ee leeyahay iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed. dhinaca kale warbaahinta Al Jazeera oo warbixin ka diyaarisay doorashooyinka Somaliland ayaa ku sifaysay doorasho ku qabsantay Somaliland mid mucjiso ah,
taasoo ku ah qaaradda ay ku taallo Somaliland iyo derisyada ku xeeran oo ay ka jiraan dowlado la aqoonsan yahay halka Somaliland aana caalamka waxay tiri afa ka haysan welina aan calankeeda laga taagin qaramada midoobay inta waranay waxaanu ku darno moogin wax weydiin ogaal ka sheegnay waa Maxamed Aadan Dirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante